saasuu gacanta warfinay kelmadda aan weydiinayo in dadka ogeysiinayo wax weey wuxuu yiri iska tag annaga shaar kullee ku gelin doonne Somaliland oo 30 sano ku faanasay dimuqraadiyad ayaa hadda waxa degdeg u soo baxaya falal argagax leh waxaana isku day dil ka badbaaday xildhibaan Maxamed Abiib oo kamid ah xildhibaanada Somaliland ugu caansan mar walbana u dooda dadka la dulmiyay haddaba daawade waxaan kula wadaagaynaa qaabkii loo qaarajin rabay xildhibaan Maxamed Abiib si aan xaqa ugu hiilino muuqaalkan like fara badan saara subscribe-na saaro YouTube-keena si aad mar walba noola socotaan haddaba waa kan xildhibaan Maxamed Abiib oo afka qaylo ku shubtay sheegayna in ciidanka booliska Somaliland ay qorsheynayaan in ay dilaan waliba taliyaha booliska Somaliland ayuu eedan u jeediyay saasuu gacanta warfinay kelmadda aan weydiinayo in dadka ogeysiinayo wax weey wuxuu yiri iska tag annaga shaar kullee ku gelin doonne annaga naqaan halkan ku geyn doono waxa weydiinaya taliyaha halkeed geynaysaa maad dilaysaa maad qafaalanaysaa halkeed geynaysaa waa ku weydiinaya shacabka Somaliland dadkii soo doortay waxaan u sheegayaa haddii lay waayaco hadday odaxii muddo haddii nafta aan wad ilaahay mooyaane tura kale soo gaadho sanadka booliska loo raacay jawaadiisi annaga garanayna halkan ku geeyna dowlaha kelmadda ugu dambeysay ku gabagabeeyo xuri xerow ciidanku boolisku leeyahay oo dambe soo galmeys daba gal waxa weydiinaya xiriyaha ciidanku ma xiriyaha ciidanka booliska ahayn kuwa shalay la miisaanada loo kordhiyay ma ciidanka boolisku in miisaanadooda lagu dagaalamay meenay kuwa dhisaya ma habeen iyo maalin booliska ahayn xiriyaha booliska ma daba galaale ma guriyiisiba madaxweyne adiguna sharci baad ku tahay madaxweyne jawaabta caynkaasa iyo dambiga caynkaasa oo marag lahayd waad u tagaysan garyaqaan Xuseen Shabeel bay la socday hadda imika wuxuu joogaa xafiiskiisa uu joogaa hadda soo socotaan wad duubay soo weydiinaysan intaan imika sheegayo ama dadka maaf qaado ma wanjalo intaaba halka ku weydiinaysan waa kan xafiiskiisa niga sijeeday أقول أنا تنكي بوليس كان قوة قرناء قف بر عدو مدة وجبوا كوما قرناء تلي يستجيو وحدا يقع ولا شيء شد ما كوري ما لا خاف كرود أنا أركب قويني قرنية هالكيد جيني صادق تلي sidoo kale waa kan garyaqaan Xuseen Shabeel oo ka waramaya wixii dhex maray taliyaha ciidanka booliska Somaliland iyo xildhibaan Maxamed Abiib tagnay xarunta CID-da waanu booqanay markii aanu hawsheedii soo dhamaysanay ayaa waxa naga hor yimi taliyaha booliska dabagale iyo askar la socota dabeeto si haleela buu markiiba Maxamed Abiib dafu yiri dabeeto isagoo tahdiid iyo hanjabaad isugu daraya waxa hadaladiisi aan ka xasuustaa inuu ku lahaa shaar kulleeg baan ku xidhi waad kibrisantahay Somaliland ba ma tihid cadowga Somaliland baad dhowr jeer baan isku dayay inaan la hadlo oo ku iraahdo taliye de xayndaabkii oo ka gudubsan tahay mas'uuliyadna sidani maaha dabeeto dhowr jeer noo dhagno mu dhigin markii dambe waxaan isku dayay inaan xakameeyo Maxamed Abiib oo ila socday oo ku dhaawaa bal adigu hadaba hadline u kaadi laakiin de intaan arkayay mas'uuliyad taliye ciidan si uu dhaqmi lahayo kale ma ahayn anu muddo 20 sano in ku dhowaan de garsoor ku soo jiray intaasoo taliye bilis ba de oo kala duwan baan la soo shaqeynay ragii badankoodii way dhinteen Allah u naxariisto weligay wax saa u dhaqmaya de lama kulmin maxaa xarunta CID-da ku soo galiyay buu ma soo gali kartid xarunta CID-du waxa weeye waa xarun dadweynaha u shaqeysa oo qaran ku leeyahay meel qof loo diidi karaa qofna laga xayiri karo qofna loo ogolaan karo maaha waa meel ummaddu wada leedahay taliyaha dabagale ka horna waanu gali jirnay dabadiina waanu galeynaa inta joogna waa la galay